مثلا nimanka aadka uga warrama waxa ka mid ah John Adair nin la yiraahdo John Adair waa nin Ingiriis ah oo qoray book la yiraahdo Leadership of Muhammad kontineeye book waa leeyay waa professor macruuf ku ah leadership-ka waa nin mudarrib ah yani leadership-ku maanta waxay ka dhigeen laba qaybood qaybi waa waxan jaamacaadka lagu barto qaybna waxay dhaahdaan waa tadriib waa tababar waa training coach baa jira marka dadka train gareeya oo maamulanimada u train gareeya shirkadka waaweyn wasaaradaha dawladaha waxa soo dhami waxay qaataan tababar ah leadership ninkani wuxuu ka mid yahay tababarayaasha dunida ugu waaweyn ilaa 1 milyan oo qof baa tababarkiisa ka baxay dad iyaga gaarka u tababaro waxa ka mid ah United Nations-ka maamulkooda oo dhan jaamacadoodan Torino ku taala waa professorka maamulka iyo leadership-ka u qaabilsan book buu qoray oo kaga warramayo nabiyullaahi Muhammad alayhi salaatu wasalaam iyo leadernimadiisii qiyaadadiisii laba waxba kala jira inuu nabi Muhammad rasuulnimadiisa ka warrano rasuul ilaahay soo diray inuu yahay iyo inaynu ka warrano abqarinimadii uu dhashay ee sheegaysa sifaadka qiyaadiga uu leeyahay ninka kan wuxuu tilmaamaya sifaadka uu leeyahay nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam tilmaamaysa inuu hogaamiyay nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam taariikhda bini aadamka hogaamiyaashii soo maray waa hogaamiye ugu weyn baynu oran karnaa inta taariikhda qoran aynu hayno waayo Winfield hal takhasus hogaamiye kuma ahayn hogaamiye siyaasadeed wuxuu ahaa hogaamiye dhaqaaleed waxa hogaamiye ummad amaamuday sameeyay ummadda gabigeedba wuxuu hogaamiyeyaal soo saaray yani jaanib kasto noloshiisa laga eego hormuud buu ahaa nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay markuu tilmaamayo qiyaadadii nabiga waxa uu ku tilmaamaya awwal sifaatu sheegay waxa kamid ah buu leeyahay sifatu raaci sifada xoolo jirnimo lahaa buu leeyahay xoolo jirka iyo maxaa iskaga xidhan wuxuu oranayaa a good shepherd guides his sheep ninka xoolo dhaqaa qowsaarka ahi xoolaha uu raaco wuu ilaaliyaa wuu ururiyaa welfarekood iyo wanaagoodu ka fakara waxa iyaga dan ugu jirto yeelaa yani ninka mesela aari raacaya waa u sahamiya meel doog lugeeya waa ururiya bahalku ka celiya midmid buu kala yaqaana teeda liidatu iyo teeda qodaxdu muddo iyo tukastu garanaya mid waliba waxay u baahantahay buu garanaya waa qof danta xoolahaasi ay leeyihiin si fiican u ilaalinaya wuxuu leeyahay qaa'idka dhabta ahi ama horseedaha dhabka ama haliyeyga dhabka ama hogaamiyaha dhabka ahi waa ninka sida xoolaha loo raaco bulshadiisa u raaca buu leeyahay nabiyullaahi Muhammad alayhi salaatu wasalaam xadiidkaynu wada naqaan buu yidhi ala kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyati mid kastoo idinka midi waa xoolo jire waa raac waa qof wax la raaciyey qof walibana wuxuu mas'uul ka yahay ciddii la raaciyey imaamku buu leeyahay wuxuu mas'uul ka yahay ummadda la raaciyey ilaahay uu soo gaarsiiyey nabigu guriga odayga mas'uul ka ah odayga gadaashi qofka dumara mas'uul ka ah carruurtiya inta soo hadhay qof walbana aakhira waxa la raaciyay waa la weydiinayaa nabiguna alayhi salaatu wasalaam waa ka xadiis kale ku tilmaamay ma min nabiyyin illa waqad ra'a al-ghanam ambiyada isagoo ilaahay hormoodnimada u tababaraya bini aadamka ayuu nabigu wuxuu leeyahay nabi ma jiro ilaa iyo xoolo soo raacay ari baa la raaciyay ambiyada oo dhan buu nabigu tilmaamaya hatta adiguna ma raacday bay yiraahdeen ilaahay rasuulkiisiyo hatta aniguna waan raacay buu nabigu sheegaya waa qof buu leeyahay dadkiisa wax la qaybsada dabeetana wuxuu tusaale u soo qaadanaya qiso Suwaad ibn Ghaziya waxa la tilmaama dagaalkii Badar markii uu nabigu dadka safayay buu ninku yiri soo baxsan safka si fiican u gal dabeetana uu shuu ku muday wuxuu yiri ilaahay rasuulkiisa iyo waxbaad yeeshay
marka waxaan rabaa inaan kaa goosto nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu marada calooshka qaado yidhi gooso dabeetana nebigu dhunkaday waxba kamuu goosanine marka ninkan gaaleed waxa uu qadiyadan u daliishanayaa sida uu ula dhaqmo qaa'idku bulshadiisa xadiiثu albani ku tilmaamaya inuu xasan yahay idan qaa'idka namuudajigii buu leeyahay qaa'idka tusaale ahi waa qaa'id waa nin tawaaduc badan ama isdhuldhig badan aan isweynayn iyo iskibrini ku jirin isla markaana ummaddiisu ay ixtiraam u hayso waa qof aragti leh oo aragtidana dadka ka dhaadhicin kara u taagan dadka uu hogaaminayo khidmadooda iyo waxtarkooda إلهي القرآن كوحي نوغت الماما يا نبي الله محمد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كودا يشفي عن بايدين كسوغان إلهي الرسول كيس قائد بويدين آياتنا وحي سودك غزوة الأحزاب غزوة الأحزاب و critical problem مسلمين تقبصدي دوني دوران باي سوغو تكتاي وحي أغاقار كودا دقنا قريش لها عربتي كالي الربادية لهاي قبائل واوين وكلا غطفان يقوى سله يهود سدح قبيل وكتر سن له ضد بدن با isu tagay muslimkoo dhowr kun oo qof ah waxaan saddex kun ba ka badnayn oo Madiina degan in mardabka la saaro mushkilada ay nabigu sidoo xalilay waynu taariikhda in badan wada maqalay saxaabada la tashaday go'aan ay qaateen markii dambe inay god magaalada ku soo wareejiyaan qaybta bannaan dagaalkaas wuu dhirindiriyay nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada kala qayb galay godka la qoday ciidda la guray wax walba la qabtay markii dambe political ay isku dayeen kooxahan ka soo horjeeday inay kala jabiyay dagaalkaas sidii uu maamulay baa ilaahay wuxuu leeyahay laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana ilaahay rasuulkiisa waxa idinku sugan كضي شفي عن با إلهي إليه سبحانه وتعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هدبا جون هذه رسالة وحكوت الماما يا صفة سي راعية محولة جرني مدى هي الصفة أينو يهي تصال اللغة ينكره ويساقوا حورين هي الديوانية ديسي ماشي قبتيسا حفيسات الباب ويوفي الرايين بولا يضط كordhami way soo galayeen oo cid nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam dadka ka celiso ka taadiya askariya waxba toona ma wadanin wuxuu kaloo lahaa buulay ru'ya vision iyo tawjiih hanuunin uu dadka hanuunin karayo dib baan wax ka tilmaami doonaa aan se soo qaato laba professor ama laba aqoon-yahan oo Maraykan ah ninkan hore Ingiriis buu ahaa mid Posner baa la yiraahdaa midna Cousins baa la yiraahdaa Jim Cousins iyo Barry Posner waa laba nin oo takhasuskan leadership ka leh waa laba nin oo kamid ah dadka wax tababara waa laba nin oo jariidadan مثلا Human Resource magazine Barry Posner waxay ku tilmaamaysaa inuu yahay 20 kan nin uu kamid yahay dunida Human Resource thinkerska ugu influential ama ugu saamaynta badan inuu ka mid yahay waa laba nin oo lagu tilmaamo coachingkoodu kontonka nin ee ugu coachnimo fiican tababarka qiyaadaadka ama leadershipka la tababaro inay ka mid yihiin waxay qoreen book la yiraahdo The Leadership Challenge waa book award winning ah jaayisaad ay ku qaateen abaalmarin ay ku heleen waa book ka mid ah best-selling leadership bookska waqti ugu fiican la iibsaday ayaa waxay yiraahdaan over 2 million copies baa laga daabacay ama la iibsaday book takhasusa inta badan buugagta sheekooyinka iyo riwaayadaha iyo bulshadoo dhan buugagta ay akhrido ayaa malaayiin laga iibsadaa laakiin buugagta takhasusaadka ku saabsan takhasusku doonaha noqdo buugagta takhasusaadka ku saabsan dad go'an baa barta inta badan waxa daneeya dadka shaqada haya ama fieldkaas arday u ah laakiin buug noocaas oo kale inuu over 2 million copies la daabaca waxay tilmaamaysaa qiimaynta uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda si kale waxay u tilmaamaan inuu ka mid yahay abidba boqolka buuga business ku saabsan mid ka mid ah 10ka buuga ugu sareeya ku saabsan bay dhahan leadership uu ka mid yahay
buugga kani waa research waa field research baaritaan soddomeeyo sano socday oo ay samaynayeen labadan professor way aadanaha baadhayeen iyo maamulayaasha iyo madaxweynayaasha iyo dadka wax hoggaamiyey ay baadhayeen waxay ku tilmaamayaan waxay bilaabeen baadhistooda tan 1982 editionkii koowaadna waxay daabaceen 1987 editionkiisii shanaad 25 years later bay daabaceen 2007 2002 alif baa haddana la daabacay soom duuduub buugga kani wuxuu ka mid yahay bugaagta aadka loo ictimaado isla markaana waa labada nine leh LBI-ga lagu qiyaasaba leadership-ka LBI-gu waa waxaan ay ku tilmaamaan leadership practices inventory waa tool 360 assessment ama questionnaire ka samaysan oo ka mid ah tuulasha ugu fiican ee loo adeegsado baaritaanka liidarrada markay baadi doonayaan tuulalka loo adeegsado tuulasha ugu fiican mid ka mida bay leeyihiin baaritaankan markay wadeen ilaa 3 milyan oo qof bay interview ka qaadeen qiyaas 3 milyan oo qof waxay dhahaan 75,000 oo qoraal baa soo gaadhay kuway waraysiga ka qaadeen oo qura maahee qoraallada tuulashoodii loo buuxiyey waxa soo gaadhay 75,000 oo qoraal nimankani waxay rabeen inay baadi doonaan dhaqan hoggaamiyeedku hoggaamiye iyagu waxay ka mid yihiin inta badan qaybta rumaysan wax la bartay inuu yahay waxay ka warramayaan dhaqanka hoggaamiyuhu waa kuma fiican ee ummad guul gaadhsiin kara dadyawgii tirada badnaa ay waraysanayeen waraysiyadoodii waxa uga soo baxay dadka waxaa la weydiinayaa yaad jeclaan lahayd inuu hoggaamiyahaaga noqdo hoggaamiyahaaga inuu sifaadkee yeeshaa baad jeclaan lahayd bulshada dunida ku nool xataa ilaa 1,500 oo mudiir CEO dad maamulayaal sharakaadka waaweyn iyo waxaa hoggaamiye ah ayaa ka mid ah dadka ay questionnaire-ka weydiinayeen idan bini aadamka waxay warsanayaan maxaad jeceshay inuu hoggaamiyahaagu noqdo inuu sifaadkee yeesho qofka maxay ah ayaad ku qanacsantay inuu hoggaamiyahaaga yahay waxa jira markaa wax ka mid ah traits sifaadka bini aadamku uu leeyahay iyo wax ka mid ah practices mumaarasaadka la baran karo oo labadaba ay dadku tilmaameen sifaadka ay dadku tilmaameen ee ugu horeeya waxaa ka mid ah honesty sifada ugu badan ee la tilmaamay waa al-amaana daacadnimo waxaanu jecel lahay liidarka iyagu ama hoggaamiyaha iyagu inuu daacad noqdo inuu honest noqdo inuu aamin noqdo sifada labaad ay tilmaameen ee ugu badani waa competence kifaa hawkarnimo aqoon shaqeed inuu leeyahay sifada saddexaad ay tilmaameen waa forward looking or forward thinking qof mustaqbalka ka arki kara qof aan gomadiisa iyo intan ku xeeran un la caqli ahayn qof sahamin kara mustaqbalka ummadda meesha u socota arki kara dadka badh baan aragtidoodu dhaafin de inaga marka la joogo waa reeraha iyo intan ku wareegsanaya inaanu meel durugsan aan wax ka arki karin nimankii 3 milyan ee qof ay ka qaadayeen kuwa shineerkaasi u dhiibayeen LBI-gooda ay wax ku weydiinayeen natiijadii u soo baxday waxa ka mid ah cidda dadku ay rabaan inuu qaa'id noqdo sifaadka ay ka rabaan waxay ugu horeysiinayaan inuu yahay honesty daacad qof aamina qof mukhlisa quraankana in badan baa ku aragteen masaladaas oo laga warramayo questionnaire-kii markaa 5 qodob baa ka soo baxay oo koowaad waa from 1987 to 2012 waxay ururinayeen
statisticskaas buuggooda saddex goor bay jadwal ku qoran buuggu waa ilaa 350 page saddex jadwal oo kala nooc baa ku qoran mid ay 1987 markii koowaad ay edishakii koowaad ay buugga soo saareen ku ka mid ah mid ay 2007 soo saareen iyo mid ay 2012 soo saareen intaaba waa questionnaire ay dadka la daba socdeen waxa uga soo baxay sifada koowaad ay dadku ka rabaan qaa'idkoodu inuu yeeshaa waxa weeyaan inuu honest yahay qof daacad inuu yahay qof aamin inuu yahay sifada labaad ay ka rabaan waa vision qof aragti leh inuu yahay ru'ya meesha loo socdo waa gadhwadeene xaggu dadka ku wado qof ay u muuqato inuu yahay sifada saddexaad ay tilmaameen waa inspiring qof dadka u waxyoon kara ama ilhaamin kara ama guubaabin kara dadka waxa uu la rabo gaadhsiin kara sifada afraad ay tilmaamaya waa competence kafaa'a hawlkarnimo qof leh inuu yahay shaqada qof gudan kara inuu yahay sifada shanaad ay tilmaameen dadku ee ugu badani waa adhakaa wa nubuuq intelligence inuu intelligent yahay qof caqli badan inuu yahay shantaas sifo waxay leeyihiin dadkii babliga ahaa ee 3 milyan ee qof waxa u batay sifaadka ugu badan ee ay ka rabaan qaa'idkooda inuu yeeshaa waa kaa ama ha noqdo wax uu dhashay ama wax loo train garay ha noqdo laakiin akhiiran waa inay noqotaa sifa nafsiya khuluq akhlaaq dhaqana uu leeyahay waa inay noqotaa inuu qof aaminayay qof aragti leh inuu yahay qof karti leh inuu yahay qof intelligent inuu yahay qof inspiration samayn kara dadka kicin kara ama hawlgelin kara ama ra'yigiisa qancin kara oo gudbin kara inuu yahay su'aalaha waxay kala weydiiyeen 1500 oo mudiir leaderskii ama managerskii dunida hogaaminaya 1500 ka mid ah ayay su'aalahan weydiinayeen waxay weydiinayaan markaa su'aalo ku saabsiisan hogaamiyaha rabi lahaydeen muxuu yahay waxyaabo badan oo kala gedisan bay sheegeen markaa dabeeta markii dambe iyaga waxay u qoreen sifaat waxay dhaheen kuwiina ka kaalaya liiska akhriya nin walba maxaad u horaysiin lahayd sifada koowaad aad ka rabta hogaamiyahaagu muxuu yahay sifada ugu sarreysay dhammaantood ay tilmaameen maamulayaashii caalamkee la yaqaanay waxay leeyihiin waa credibility waa mistaaqiya kalsooni in qofka lagu qabi karo qofka in kalsooni lagu qabi karo iyaga laftooda waxay qoreen bug la yidhaahdo credibility how leaders gain and lose it bug ay u bixiyeen bay qoreen qofku in lagu kalsoonaada qaa'id aanad ku kalsoonayna hadduu ku hogaaminayo wuxuu sheegayaana kaa dhaadhici maayaan xaggu ku wadana xataa hadday sax tahay ma rumaysnid haddaanad rumaysnayna dee taageeri maysid inagu waxa ugu badan haddii dadka la sii dacaayadeeyo oo la sii maago oo shaadhka laga sii siibo oo kalsoonidaad dhulka gelinaysaa hadday kalsoonidu dhulka gasho he can lead ma hogaamin kara dadka markaa waxay tilmaamayaan hogaamiyuhu waxyaabaha ugu weyn aanu ka rabnaa bay leeyihiin waa inuu noqdo qof kalsooni lagu qabo